Afar dabeecadood oo qofkii astaan u noqdaan ay hubaal tahay inuusan nolosha weligii horumar gaaraynin, dib u dhacna uusan marna ka dhammaanayn. Midda koowaad waxay tahay calaacalka. Calaacalka sidiisaba nolosha waxba kama bedelo. Noloshu isbeddelkeedu wuxuu u baahan yahay kac oo gacantaada wax kaga bedel. Midda labaad waxay tahay eedaynta. Cid walba way eedaysan tahay marka naftaada laga reebo. Waxaan maxaad u tiri qofkaas iga keenay? Maxaad u shaqaysan weyday? Wadanka ayaa shaqo jirin. Cid walba waa eedaynaysaa naftaada marka laga reebo. Sababta ugu horeysa aad la horumari laadahay waa naftaada inaad eeda ka fogeysid oo mar walba kula qumanaato oo ay kula saxsan tahay. Si kasto ay u khaldan tahay taasaa ku diidayso inaad khaladaadkaaga ku muuqdaan si aad u saxdeed oo marka noloshaada horumar u gaartid. Midda saddexaad waxay tahay maxadnaq la'aan. In maalintaada 24 saac ka kooban aan lahayn waqti kooban oo aad rabbigaaga nimcooyinka ku siiyay ku xusuusatid. Iyadoo Rabbi subxaanahu wa ta'aala uu leeyahay wadhkuruu nicmatallahi calaykum. Rabbi wuxuu leeyahay xusuusta nimcooyinka aan dushiina yeelay. Haddaba lahow waqti ku gooni ah oo rabbiga ku xusuusatid. Kuna xasuusatid nimcooyinka tirada badan ee la koobi karin ee Ilaahay dushaada yeelay. Midda afraad ee ugu dambeysa waxay tahay inaad si fudud u rajo go'did iyadoo rabbiga kugu dhiirigelinayo meelo fara badan oo Quraanka Kariimka ka mid ah. Inaadan naxariista marna ka quusan. Ugu waxaad weyday kuma qornayn. Waxa ku qorna marna waayi maysid. Noloshaadana gabagabadeeda ma joogtid hore u soco rajadaada mar walba noole.